السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأي حسي حسوس وأنا يحرمي حق دور إن ويمادو ولالكي أنا جوا فنان كيجي وأنا كي قاعد هسي وهريان سمي أولا هذا إن السود ويون ويمادون ما مسامها وحن ويجبريه وحن كو خصبنا هدان شبوتي تجو سودو كلو كو خصبيه هدان كندا تو كو خصبيه مالين دويد بان تجي شجود سيجو بالنملة أو شرف الله يسودوي أشري حسنات سودوين تيدا اللي جماه لينه وحيجا من نعيان أون هاي هذا يقوم هالعني ريتش شجع أون هالكنا كان بلينا ينكسلامي يوي ضد كافية دقني يصير وذاك تهس ومالنا هالفرهين ما ندري يايو وروح أيضا كلا قيبية السياسة ضي حدودها وحكوين وحيدين مذية إيه أقونا إيه دلشاه إيه ديجا حوالي هرجيسة مرتكو معها عبد الله حسن قليمان وقام هالعليا ويسوع الشيعي إن وحنا هاي دقون صور دقائق وانكو خصبنا هاي وانا كلام ظن هاي في هرجيسنا حوالي آذن ما هم مقالة ومرتكو هاي هو مقالة دي سي بعض الصحافة دوانهم هالعليا سفير كتشبوتي بانهم هالعليا صاحبنا هاي وحنا هالعليا فنانين تحديها جيسك يفنك قيبيسة كل دوان waxaan leeyahay dareenka iyo shucuurta ku soo dhaweyseen cawaale waa mid fanku abaalka idinka hayo ee maaha mid cawaalo kaliya idinka hayo cawaalona waxay kugu xantaan Soomaaliland buu necab yahay Jabuuti jecelaw oo jigjiga jecelaw oo Muqdisho jecelaw oo Hargeysa jecelaw wasalaam horta bismillaahir rahmaanir rahiim waadi ka mahad celinaya dhamaantiin soo dhaweynta qaaliga ah kulli hadal badan de saxaabtii ba dhamaysay laakiin runtii in mudaaba waan soo socday oo hargeysa waan ku taaminaan imaado waana magaaladeedii waxaanan aaminsanahay kulli xilligan ka heesay daa'imka ma ahayn oo waxa weeye taasi taariikhda ku jirta inaan mar labaad u soo noqdana de waan ku qasbanahay oo waa magaalo fankayga abaal weyn ku leh fanka Soomaaliyeedna abaal weyn ku leh kulli de anigu nin fanaan aan siyaasi meey kulli aniga fankayga waxa u roon inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u heeso Somaliland iyo jamhuuriyadda Somaliland iyo macaasimadeeda Hargeysa waxay laf dhabar ka tahay ummadda Soomaaliyeed fankaygana laf dhabar bay ka tahay de kulli dadku de kulli fanaan caana marka tahay dadku waxay rabaan de way ka sheey karaan laakiin xaqiiqatan marka laga hadlo anigu afkii aan ku iri hooygii murtida iyo hooyadii abwaanka wax ka dambeeyo ka daba oran karo yaasay jiray marka taasi waa xagaas taa markaan ka imanno waxaan u mahad celinayaa runtii dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay dhamaatikayga oo uu horeeyo walaalkay iga weyn ahna safiirka Soomaaliland u jooga Jabuuti kawaaliye oo leeyahay runtii aad iyo sare baad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha cigaal international airport oo si fiican noogu fududeeyay waxaan u mahad celinayaa shaqaalihii xerada diyaaradda ee Jabuuti oo runtii si qurux badan iyaguna noo soo safray waxaa kaloo mahad celinayaa dawladda Somaliland oo uu mas'uul ka yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Saylici oo runtii shaqo qurux badan iyaguna nala qabtay waxaa kaloo mahad celinayaa dawladda Jabuuti oo si fiican noo soo safarkaas noogu soo dirtay runtii anu de fanaan waanahay laakiin haddana kulli bulshada isku xiristeeda fanaaniinta ayay shaqadooda tahay jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda Somaliland waa dad walaalo wada dhashay inaan isku xidhnana waa shaqadayadii waxaan aaminsanahay inaan shaqadayadii uma gudanayna yaan aaminsanahay waad maasati walaal horta anigu qaran uma aqoonsado qaran jirina ma baabi'iyo fanaan baan siyaasi ma ihi meel qaran lagu yagleelo ama qaran lagu sameeyo waligeey ma fadhiisan shirar qaran waligeey ma fadhiisan siyaasi ma ihi qaran ma burburiyo ma garanaysaa ma ihi jabhad ma ihi nin fanaan aan ahay Soomaaliland waa wadankaygii cid iga xigtana ma jirto laakiin waxaan ku sheegayaa adiga afkaaga kiid waa lagu xantaa waa la igu xantaa lagu ma xariiro ka soo hor baxsan doona mise waad ka gaari doontaa waan ku soo gaaray walaalkay cawaale aadan dehay aad baan soo dhaweynaya waxaan aad iyo aad u jecelahay kulli wala hadlay oo Abuu Xasan Salmaan xil baa hadlay marka waxaan jecelahay cawaale ku soo dhawow dalkaagii hooyo waa halkaad u qaaday heestii hooyigii murtida iyo hooyadii abwaanka cawaale gacmo furan ba bariyahaba lagu soo waday soo dhawow waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay cawaale aadan dhammaan fanaaniinta Hargeysa iyo kooxda xidigaha geeska waxaan leenahay soo dhawow
عوالة وحكى الله صعدة أستاذ ألتو يو إلياس إدريس يجنا حلا يسود وهذا عوالة صاحب ويلكم بدن بيننا صار صح الصورة.